gogol nabadeed oo uu dhigay Suldaan Mustafa Maxamuud Awseed oo ka mid ah isimada dhaqanka ee gobolada Sool Sanaag iyo Cayn laguna dhameynayay shaqaqa ka dhacday degmada Ari Cadeeye ayaa maanta lagu soo gabagabeeyay magaalada Tanlaascaanood waxaana laga gaaray heshiis nabadeed odayaasha labada dhinac ayaa si weyn ugu mahad celiyay Suldaan Mustafa Maxamuud Awseed sida weyn ee uu isugu howlay soo afjarida colaadaasi oo muddo halkaasi ka jirtay iyo gogosha nabadeed ee uu beelahaas u dhigay qaar ka mid ah odayaasha labada dhinac ayaa si weyn u soo dhaweeyay heshiiskaasi waxayna si weyn ugu mahad celiyeen suldaanka waxayna sheegeen in nabadaasi ay wax weyn ka dari doonto horumarka deegaanka Ari Cadeeye ugu horeyn waxa halkaasi ka hadlay boqor Khadar Cali Jaamac oo ka sheekeeyay ahmiyadda nabadu leedahay anigu laba beelood oran maayo dad walaalaahoo isku deegaan oo Ilaahay meel wada dajiyay weeye urguftii dhex martayna maanta isafgarad iyo nabadgelyo ay ku dhameysteen Ilaahay baa mahadda iska leh dhammaan odayaasha arinta nabadgelyada dhameeyay ee labada daraf aad iyo aad baan ugu mahad celinaya waxaan leeyahay Ilaahay khayr ha idinku bedelo wanaaga aad ka shaqayseen wax wanaagsan Allah idin siiyo gogoshaas waxaa dhigay Suldaan Mustafa oo u dhigay degmada Ari Cadeeye dhibaatadii ka dhacday oo hadda sanad iyo siyaado laga joogo oo hadii badanka leeyahay arintaasi inta xayirayd oo ay taagnayd farxad weyn bay tahay maanta in la isaga yimi oo suldaanku gogosha dhigo oo nabadgelyo uur xaaran oo dhab ah maanta la gaadho waa wax Ilaahay loogu mahadnaqo weey Ilaahayna waxaan ka baryanaa dhibaatada laga heshiiyay inaan Ilaahay dib inoogu soo celin way halka inaga dhamaato waxa dhiman waxa weeye wax kala gurasho waa wax kala qaadasho waxa la isku leeyahay ee la kala guranayo waxaan u soo jeedinayaa labada darafba in siday tahay hadii ay beedankeeda leeyahay walaw waliba wixii xaqay raaca ay iska bixiso oo sida ugu dhaqsaha badan la isaga bixiyo arinta loo afjaro insha Allah bidmilaahi kariim waxa looga gudbayaa waxa weeye mar haday taasi dhamaatay oo gacmaha la isqabsaday oo laga walaaloobay oo la isu urxaadhay in deegaankii la wada tago sidan oo kale in la tago oo dadkii la wacyi geliyo waxa la gaadhay la gaarsiiyo hadii bidkleey xafladda gunaanadka ana oo ay ka soo wada qayb gali doonaan insha Allah dadka gobolka oo dhani waxa lagu qaban doonaa insha Allah bidmilaahi kariim magaalada degmada Ari Cadeeye hawshaas cid walba waxaanu gaarsiinaynaa mid mii jira iyo mid magaalo jira iyo mid qurbo jira iyo mid dalka joogaba in ay dhamaatay oo wanaag ku dhamaatay cid walbana waxaanu ka codsanaynaa wanaaga in laga wada shaqeeyo mar hadii la isafgartay laga wada fadhiistay la isaga garaabay hadii beedankeeda leeyahay wixii dhimanna dhameystirkeeda cid walba inay ka qayb qaadato dadka labada daraf ee qurbaha ku maqan khaasatan hawshaas nabadgelyada dhameystirkeeda inay ka qayb qaataan baan u soo jeedinayaa horumarinta degmadana inay ka qayb qaataan bidmilaahi kariim waa farxad weyn maanta weeyaan nin walba oo wanaaga jecel nin walba oo nabadgelyada jecel nin kasta oo hadii islaamnimo ku jirto wax lagu farxo weeyaan ayay gaadheen labadan daraf dadka kale ee dhibaatooyin ka dhaxeeyana Ilaahay waxaan uga baryanaa inuu sidan oo kale isafgarad iyo wanaag iyo nabadgelyo iyagana ugu dhameeyo arinta hawdka ka dhacday oo hadda ugu dambeysana waxaanu u soo jeedinaynaa hadii aanu nahay odayaashii gobolka dhamaanba in nabadgelyo lagu soo dabaalo wixii dhintay inoo soo noolaan maayaan wax dambe inaga dhiman dibta ayaan dib dambe laga dabageyn wixina looga baahdo oo nabadgelyada ku saabsan diyaar baanu nahay hadda odayaashii gobolka
haddii bidikle arrintaa dhegtay ku wada hayaan odayaasha ku jira ee u soo baxay ee juhdiga ku bixiyena ilaahay waxaanu uga baryanaa in khayr ilaahay kaga abaalmariyo arrintaasna uu ku guuleeyo oo ay ku dhammaato intaasaanu iyagana uga baryanaa mahadna ilaahay baanu celinaa ballaadhano dhibaatooyinkii hawdka ka taagnaa iyo kuwii taleex ka taagnaa ee ugu culcuslaa ee hadda mandaqadan ka dhacay ilaaha inaga soo afjaray ee wanaag inoogu dhameeyey baanu u mahad celinaynaa waxaan u mahad celinaynaa in allaale intii hawshaa ka qayb qaadatay isimo iyo cuqaal iyo waayeel iyo waxgarad iyo darafyadiisa hayeba iyagana mahad ballaadhan baanu u celinaynaa waxaan halkan ka soo gudbinaynaa ama ku cadaynaynaa ama ku sheegaynaa heshiis aanu wada gaadhnay ama dhex maray beelaha reer cilmi iyo reer faqishinni oo muddo xurgufi dhex taallay heshaasi way dhammaatay waa la soo gebagabeeyey kowda maanta oo ah kowda bishii koowaad 2019 ayay hawshaasi ku soo dhammaatay jaamacadda Nugaal insha Allah tacaala dhamaystirkeeda iyo hadhaagiga waxa harayna dhamaystirkeeda waxa lagu dhamayn doonaa xafladeeda weyna lagu qaban doonaa degmada Arcadee haddii alla idmo waxaan u sheegaynaa dhammaan inta jecel nabadda reer cilmi reer faqishinni iyo inta necebba inay hawshaasi dhammaatay oo ay soo gabagabowday waxaan kaloo halkan ka faa'iideysanayaa Charles ka faa'iideysanaya aan baaq uga dirayaa beelaha walaalaha ee ay dhibaatada colaadda ay ku dhex martay ama dilalku ka dhaceen degmada Buuhoodle reer Cali Geel iyo reer barkad guuleed waxaan leeyahay nabadgel guuleed garaad ee dhammaantiin hawshaas waxa weeye nimeeyahow colaadi waxba ma tarto colaadi waad ogtihiin meesha ay ina dhigtay Soomaali dhigtay dhulbaanta dhigtay waxaan leenahay colaada hala joojiyo waxbada hala joojiyo yaan wax dambe wixii dhacay wax dambe ay ka daba tagin dhammaanna halkan beelaha reer cilmi reer faqishinni anoo ku hadlaya afkooda ayaan baaq uga dirayaa waxaana leeyahay hawshaasi halka ay joogto yalla dhaa iyo kulankan maanta la isugu yimi oo ah heshiiskii labada beelood ee walaalaha deegaanka Arcadee lagu soo afjaray waxa mudnaanteeda lahaa Suldaan Mustafa Maxamuud Awseed oo ka mid ah salaadiinta dhaqanka ee gobolka Sool gaar ahaan degmada Arcadee suldaanka iyo gudidii marjac ahayd boqorka iyo gudidii kale la shaqeynayay cid kasta oo hawshan ka soo shaqeysay oo juhdi ballaaran ku bixisay ilaa tar yaxsanada ka sii waxa nuriteynaa ilaahay aanu ka rajeynaynaa waxeeda dambe ka qabyadana inay u dhamaadaan sida maanta ka muuqata aqoonyahanka waxgaradka guurtida iyo cuqaasha boqorka iyo suldaanka iyo labada reerba sida ka muuqata inay inta ka dhan lagu gabagabeeyo xafladda ballaaran ay noqon doonto degmada Arcadee insha Allah bismillaahi kariim ee lagu soo aftarayo hawsha ama heshiiska dhacay ee dhexmaray reer Arcadee dhexmaray baanu aad u soo dhaweynaynaa insha Allah waxaanu rajaynaynaa inaanu hareeraha iska taagno hawshaas dhamaatay hadeer wixii hadda aan uga gudbaynaana ay noqon doonto horumar iyo wixii naga habsaamay intii madmadowgu nagu dhex jiray inaanu noqon hadda wixii ka dambeeyay aynu horumarka u dhaqaaqno waxyaalaha dhimanna aanu dhamaystirno marka anigu kulay intaas uma ku soo koobaya waxyaalaha maaragtay wixii kale dadka kale maaragtay ay arintani si khaas ah si gudba u khusaysan waxaan u baaqaynaa in arintaasi ay dhamaatay in hawshaasi lagu guuleystay in heshiis nabad oo niyad ah uu dhexmaray dadkii ka shaqeeyay hawsha tan suldaanku ugu horeeyo beelaha reer Arcadee iyo odayaashii kale ka shaqeeyay aad baan ugu mahadnaqaynaa iyagana ilaahay waxaan ka barajeynaynaa hadda horta waxaan u mahadnaqaynaa annagoo aabeesha reer faqishinni iyo reer cilmi naaleeye gogosha uu noo dhigay suldaanku nabadeynta xurguftii yaray reerka soo kala gaadhay dhamaystirideeda iyo daba iska raacinteeda ahayd laguna guuleystay waxaanu mar labaad u mahad celinaynaa aan u mahad celinayaa labada beelood guurtidooda iyo culimadooda
gooshii suldaanku dhigay ayiday nabadiina qaatay reer sool waxaan u sheegaynaa haddaad reer cilmi iyo reer fiqisna colaad ku ogeydeen waxaad ku ogaanaysaa nabad reer sool ama dhulbahante waxaanu idiin sheegaynaa sool cidda degto oo dhan dhulbahante iyo wixii la halmaala haddaad colaad ku ogeydeen reer fiqisna iyo reer cilmi colaadaas way dhammaatay ilaahay baa mahadle looga mahad celinayaa ilaahayna waxaanu ka baryaynaa ilaahay colaaddaa dib noogu soo celin haddaanu labadaa beelood nahay aad iyo aad baad mahadsantihiin maxaan ku idhaahdaa waxaanuna rajaynaynaa mar haddaanu labadayadii reer nabadda qaadannay inaanu gobolka wixii ka jira colaadahee ka jira annaguna aanu ka qayb qaadanno oo aanu garbaha isqabsanno guddi ka noqonno oo labadii reer sool ka mida ama muslimkaba ah sida aan u heshinay inay u heshiiyaan inna lagaga daydo maanta iyadoo aan cidinugu dhex jirin suldaanka iyagii mooyaane labadii beeloodoo keliya aanu nahay aan maamul nagu dhex jirin aan qabaa'il nagu dhex jirin aan garaaddo kale nagu dhex jirin inaannu gacmaha ishaysanno oo heshiinnay in sidaas oo kale la yeelo ayaannu dadka ugu baaqaynaa ilaahay waxaan ka baryayaa colaadda haddeer soo cusboonaatay maxaan ku idhahda labada beeloodoo walaalaha ah reer caligeli iyo barkad in iyadana ilaahay dhammeeyo aana ilaahay halkaa dhaafin waa ka baxay hadalka raallina ha layga ahaado baaraka allahu fiikum wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum ugu dambeyntii waxaa kulankaasi soo afmeeray suldaan mustafe maxamuud awse nabadii labada dadka deegaanka reer caddeys la qaateen runtii aad baan ugu faraxsanahay ilaahay baan uga mahad celinaynaa subxaanahu watacaala oo waafajiyey saaka waxaa la wada qaatay nabad guud iyo in laga heshiiyo dhammaan wixii dadka dhex yaallay waxaa ilaahay mahadiisa maanta inay labada reer si saraaxatan ay wada hadleen inay isla qaateen nabadii iyo dhammaan qodobadii caqabadda ku ahaa islimaanshaha ama wada hadalku inay dhammaadeen waa heshiis aad u weyn oo hordhaca waxaana gebagabaysa iyo gurnaadkiisa la sugayaa berri iyo saa dambe haddii alla idmo wixii hadhay oo ahaa xuquuqdii in waqtigoodii iyo cadadkoodii iyo wixii yararkaa dhimaan la dhammaystiro berri iyo saa dambe maalinta jimcahana haddii alla idmo xafladii weyneyd oo dadka deegaanka oo dhanna aynu ku marti qaadaynay ayaa inoo dhici doonta insha allah aynu kusoo gebagabaynaynaa waxaase aad wanaag iyo farxad u ah sidii saaka loo wada hadlay iyo sidii meel loo wada dhigay sidii loogu heshiiyey in nabad guud la wada qaato qalbiga laysu safeeyo waxyaalihii taagnaana looga heshiiyey intan marka waxaan u dardaarmayaa raggiinni guddiga ahaa iyo intii la joogtayba inaad dadkii kalena gaarsiisaan in nabad la qaatay taasaa muhiim ah maanta heshiiska lagu heshiiyey nabad la qaato wax alla wixii yimaada haddii wax dhib dambe yimaadana wanaaggaas lagu xalliyo ilaahayna waxaan ka baryaynaa subxana wataala inuusan dhib dambe inoo keenin waxaan u mahadnaqayaa odayaashii guddiga labada dhinac muddada hadda 3 maalmood fadhiyey waxaan kale u mahadnaqayaa guddigii marjacaha iyo raggii ila shaqaynayey isu soo dhaweynayey arrimaha mar walba ku dadaalayay inay hawshani sida wanaaggan ay ku dhammaato arrintaas waa arrin ilaahay loogu shukriyo subxaana watacaala dadka ka qayb qaatay inay hogaaninteeda leeyihiin sidaas oo kale ayaa waxaan rajaynaynaa intay naga maqanna inay nala qaadato nabaddaas iyo wanaaggaas la wada qaatay dadka deegaanka ama gobollada aynu ku nool lahodhan waxaan ugu baaqayaa nabadgelyo inaynu ka wada shaqeyno nabadgelyada dhibaatooyinka dhacayna ilaahay intaas aynooga ekeeyo wax dambe inaynu uguma daro dadkuna waxgaradkuna arrintaas ama dhib kastoo dhacay gacanta lagu qabto waad ogtihiinoo dadka dhaqanku waxay hayaan shaqadii dowladeed bay hayaan hadday noqon lahayd gacanku qabasho hadday noqon lahayd mataqaanaa ka hortegid hadday noqon lahayd fulin wixiiba maanta waxgaradkiinana laga rabaa hawlihii ay dowladu qaban jirtay oo dhan maanta gaar ahaan gobolka sool waxay dusha ka saaran tahay waxgaradka iyo dhaqankay dusha ka saaran marka idinkaa isu maxkamada idinkaa isu mataqaanaa ciidana idinkaa haddii alla yahay xukaam isu ah waxaan aad ugu faraxsanahay iyadoo cidi ku dhex jirin ay labada beelood intay wada fadhiisteen ay arrimahoodii
qaybihii ugu muhiimsanaa dhamaysteen intii u dhimanaydna ay hadda ay dhamaystirayaan oo heshiis ku yihiin qiraada isugu yihiin xuquuqdiina ay kala cayimayaan waqtigeediina ay cayimayaan inta laga sugaya waa intaas aad baad ugu mahadsantihiin ilaahay waxaan ka baryayaa nabadaas aynu jiroonay inuu si wanaagsan inoogu dhammaystiro dhammaan deegaanadeenna iyo deegaanada kalena ilaahay nabadgeliyo uu kusoo dabaalo ayaan ilaahay ka baryayaa faarax maxamuud dubaad goobjoog laascanood